walaalo waxaa jirtay deegaano dhulbeereed ah oo u dhexeeyey degmooyinka Afgooye iyo Balcad labada gobol shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose oo sidii 2012 Al-Shabaab deegaanaas looga saaray aysan weligood imaan ciidamo yar oo deegaanka ah iyo Balcad iyo Afgooye laga kala xukumo yaa amniga sugayay oo booliiska deegaanka ah booliiska dowlad goboleedyada ah haye maalin dhaweeyay soo abaabuleen Al-Shabaab waxayna ka yimaadeen xuduudda gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo hiiraan u dhaxaysa haye xoogaa durugsan weeye ilaa 100 kilomitir waqooyiga gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ay ka yimaadeen hal mar bay waxay qabsadeen deegaankii 30 kilomitir oo u dhaxaysay Balcad iyo Afgooye haye waxay ku bilaabeen dadkii inay lacag ka qaadaan beer walba intaasoo dollar inay ku xukumaan $1,000 qofka ugu yar oo minibaska leh ku shaqaysta oo ilmaha uga raadsada biil waxay ka qaadeen $200 qofkii cagaf leh $2,000 qofkii beer weyn leh $20,000 niman noocaas ah yimid oo dhowr boqol ah oo saldhig ka dhigtay magaalada Basra oo caawa anagu aan joogno iyo tuulo yar oo Baghdad la yiraahdo iyo tuulo kale oo Jambaluul la yiraahdo waa gartay laga marana noqotay si degdeg ah in la isu abaabulo abaabulkii waxaa ka dhashay howlgalka maanta aan ka soo sameynay Afgooye iyo Balcad waxa ay caado ayaga markay ciidamada ogaadaan abaabulkooda si aan khasaare u dhicin inay cararaan waa gartay nimankii Basrada hadda aan joogno waa ka carareen Jambaluulna waa ka carareen Baghdadna waa ka carareen waa saddexdii meelood ay ku xooga badnaayeen waxayna u carareen dhanka waqooyiga ka xiga gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waqooyigooda oo ah xuduudda hiiraan iyo gobolka Bay ay iska galaan waa gartay marka khasaarahan aad sheegayso khasaarayaanan dhihine lacagahan baada ah ee cadadkaa la eg waa lacaga badan marka ma dadka deegaanka idiin sheegay sidee wax ku ogaateen adinku maya dadka deegaankaa noo sheegay dadka beeraleyda waxay yidhaahdeen weligay waxaan oo kale aanu aragnay ma jirto qofka baabuurka minibaska ilaahay hadduu yidhahdo markaas lacagta ma hayo isla markaa baabuurka laga wareegayaa qofka cagafta waa lagala wareegayaa haddii wixii lagu xukumay hadduusan bixin niman dhac iyo boob ujeedo bay ahaayeen dadka dad badan bay jeedleen oo garaaceen oo dhibaato weyn u geysteen waa gartay marka waa gartay waxaad ada raalli generaal caanood hadda sidaad sheegtay Afgooyada iska soo abaabusheen nimankan aad ceersanayseen dhibaatadan idin soo gaartaad lahaydeen bal wax ka qabto hadda deegaankii waad joogtaan maxaa qorshuhu yahay marka hadda waxaan isu aabilaynaa inay wadaday ku baxeen aan kaga daba baxno oo meeshay joogaanba ugu tagno waa gartay waana ka naqaanaa meelahay joogaan hadda magaceeda sheegi waa naqaanaa hadda waa gartay marka haddii soomaalidana wax kuma kala qarsoomaan haddii hadda deegaanadii horey sidaad sheegtay ay dhibaatada ugu hayeen aad ka saarteen deegaano kalena ay ku baxeen soo haddana tii tun lamida uun meelaha kama sii samaynayaan midaan horta waxaanu insha allahu degi doono imaan doono booliska dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed yaa deegaankaan imaan doona markaan ka sifayno annagu oo wixii meelaha ku harka qaar baa naloo sheegayaa unugyo iyo kooxo yar yar ah oo cararayo beer ku dhex jira naloo sheegayaa oo roobkii inta dacay dhulka dhiiqada mari waayey kuwaas ilaa iyo waa ugaarsan doonaa insha allahu tacaala meesha ay joogaanna inaan kaga daba tagno waa rabnaa laakiin sidaan ugu tegeyno iyo waktigaan u tegeyno iyo jihadaan kaga imaanayna waa noo gaar waa gartay waa arrin ciidan waa gartay laakiin waxaad iiga warantaa dhinaca kale inta badan dawladda markay howlgallo sidan oo kale sameeyaan oo ay deegaano horey al-shabaab ay u haysteen ay qabsadaan waa muddo kooban kadibna way ka baxaan haddana shabaabki way soo noqdaan soo marka jugjug meeshaadii joogun maaha mise waxaa jira qorshe ka duwan kii hore dawladdu ay ka howlgeli jirtay maya qorshe tactical noocaas ka duwan baan hadda rabnaa horta deegaanka waxaan ku socdaynaa booliiskii gacanta ku hayay awal waxaanan samayn doonaa mar walba kormeer iyo roondooyin iyo weeraro kadis ah oo meelaha iska soo abaabulaan aan ku qaadno saysan jaanis ugu helin inay meelaha ciidamada jirecsan ciidamada nabadgelyada booliisku joogaan ay u qabsadaan aysan awood ugu helin marka qorshahani ma qorshe joogto ah oo dawladdu diyaarisayba mise waa mid si kumeel gaara meelahan dhibaatooyinka laga soo sheegay ay dawladdu rabto inay bal dhibaatada ku yarayso maya waa qorshe joogto ah oo ciidan isku dhafa iyo ciidamada commandoska iyo ciidamo kala duwan baa fulin doona aan qalab gaar ahay wadan doonaan oo loo keenay oo casri ah wajigna waa loo samayn doonaa laakiin hadda sidoodaan bay ku howlgalaan dawladduna way og tahay waa qorshe la sameeyey wey oo diyaarsan yaa qorshahan idinkula jira oo gacan idinka siinaya
amisom inkastoo hadda aysan dagaalka nagula jirin amisom qayb bay ka tahay. ciidamo kale oo shisheeye oo gacan siinayana waa jiraan oo macalimiin u ah ciidamada iyada qaar kamida iyo kuwa kale oo dalalka dibadaha hadda aanan dawladdaasi ma ku dhahayo. marka iyaga kaalintooda maxay tahay? ayaga kaalintooda ay gacanna siiyaan weyo, cirkana way nooga sahmiyaan, dhulkana waa nagula duulaan. waa garta qorshahan marka ma mid hadda un bilowdaa mise midkaan hore uma jirin. shaqada amisom iyo soomaali keliya ay awal ahayd, laakiin sahanka hawada iyo hawlgalka dhulka oo casriyeysan awal ma jirin. laakiin hadda waa muddadii dhaweyd oo madaxweynaha lagu xintay duldaasay ka dambeysay bay arrintaani bilaabay. marka waa mid wada socdo, waana heshiisyo dawladda iyadoo ay soo samaysay iyo ay la soo gashay meelo kale. marka sahankan hawada iyo midka dhulka ma kuwa wada socdaa oo marka sahanka hawada wax lagu ogaado ayaa dhulka waa kuwa wada socda. jenaraal cabdulaahi cali caanood oo ah abaanduulaha ciidamada xooga dalka oo goor dhaweeta u warramaya Caashe Ibraahim Aadan ayuu kaasi ahaa. Galera Video Center channel. Subscribe for daily Somali news update.